kulan wacan daawadayaal halkan waa janalka isha wararka TV waana 6 bisha November sanadka 2020 qodobada warka janalka aad ku daawa doontaan waxa kamid ah Sarakiil shisheeye oo Muqdisho u yimid arin la xiriirta doorashada dalka Soomaaliya ku dhawaad 60 qof oo lagu dilay gudaha Somaliland Faransiiska oo ujeeda ka damacsan Kenya iyo saameynta arinka la xiriirta ee kaga imaanaya Turkiga iyo Soomaaliya ayaanu soo qaadan doonaa iyo waliba wararkii ugu dambeeyay la xiriira arrimaha doorashooyinka Mareykanka Joe Biden waxa uu si lama filaan u qabtay hoggaanka gobol sanado badan ay jamhuurigu ku tashajireen intaasi daawadayaal waxay ahaayeen qodobadii ugu waaweyn warka janalka isha wararka TV fadlan hadii aan ugu cusubtaan ugu soo biir oo subscribe sar janalkan si aad uga mid noqoto saaxiibada sida joogtada weela wararka 24 ka janalkan ku baahin doona aragtidiina halka hoose nagu reeba muuqaalka share gareeya laagtiin waa inoo muhiim daawadayaal aadna ku soo dhawaada warkii oo faahfaahsan Sarakiil shisheeye ayaa Muqdisho waxa uu yimaadeen arrimo la xiriira doorashada Soomaaliya magaalada Muqdisho waxa soo gaaray ku dhawaad 150 askari oo u dhashay dalka Ghana kuwaasi oo ka mid noqonaya ciidamada midowga Afrika amisom ay ku sugan gudaha Soomaaliya ciidamadan waxa ay ka howlgali doonaan sida la sheegay deegaanada maamulka koonfur galbeed Soomaaliya iyagoona booliska Soomaaliya ka saacidi doona sugidda amniga goobaha doorashooyinka bayaan ka soo baxay amisom kadib markii ay ciidamadan yimaadeen Muqdisho ayaa waxa lagu sheegay in loo gudbi doono magaalada Baydhabo waxaana lagu la dardaarmay in ay waajibaadkooda u gutaan sida ugu wanaagsan imaatinka ciidamadan qaybta ka noqonaya amisom waxa uu ku soo aadaya xilli ciidamada nabad ilaalinta midowga Afrika la sheegay in gudaha Soomaaliya iskaga baxayaan sanadka 2021 balse ilaa iyo hadda ma muuqato saasaan lagu fulinayo qorshahaasi geesta kalena ku dhawaad 60 qof ayaa lagu dilay gudaha Somaliland deegaanada Somaliland ayaa waxa lagu dilay 58 qof sanadkan aanu ku guda jirno gudihiisa sida uu shaaciyay taliska guud ee ciidamada Somaliland oo ka warbixinayay dilalkii ugu dambeeyay ee ka dhacay gudaha Somaliland ku-xigeenka hoggaanka howlgalinta ciidanka booliska gaashaan la dhexe Cabdi Sheekh Ismaaciil Sheekh Xasan oo warbixin ka jeedinaya munaasabadii lagu xusayay sanad guuradii 27 ee ka soo wareegtay aasaaska ciidanka booliska Somaliland ayaa waxa uu sheegay in dilalkaasi qaarkood loo hayo gacan ku dhiglayaashii ku eedeysna waxa uu xusay in ciidanka booliska Somaliland ay gacanta ku dhigeen eedeysanayaashii ugu badnaa ee loo tirinayo inay ku lug lahaayeen dambiyadii dalka ka dhacay oo ay kamid yihiin dilal iyo waliba kufsi gaashaanlahan ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in deegaanada Somaliland ay ka dhaceen falal badan oo la xiriira tacadiyada jinsiga kuwaas oo tiradooda uu ku sheegay 161 kiis oo kufsi ah oo loo hayo 140 eedeysana oo kala duwan Somaliland ayaana inta badan lagu tiriyaa maamulada ugu amniga wanaagsan ageyga Soomaaliya iyadoo walaac cusubna ay abuureyso in muddo ku siman 10 bilood ay gudaha deegaanadaasi ka dhacaan dilal ku dhow 60 qof inta la ogayo waliba falal la xiriira kufsi dhanka kalena Faransiiska ayaa ujeedo ka damacsan Kenya adaba arinkan saameyn nooca ay ku yeelanaysa Turkiga iyo Soomaaliya madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta ayaa dhawaan la kulmay dhigiisa dalka Faransa Macron waxa uu kula kulmay magaalada Paris safar uu ku soo beegay xilli COVID-19 uu dunida aafeeyay ayaana ahaa mid ujeedo badan leh oo Faransiiska iyo Kenya ku kala saxiixdeen heshiisyo maalgelin gaaraya 1.6 bilyan oo euro sida lagu xoojinayo xiriirka labada dal bishii Maaj sanadka 2019 Macron socdaal uu ku kala bixiyay Djibouti Ethiopia Kenya taas oo warbaahinta ku tilmaamtay mid looga gol lahaa ka hortaga saameynta Shiinaha ee gobolka balse u muuqday in loogu gogol xaarayo saameynta Faransiiska ee bariga dhexe socdaalkaasi Macron wuxuu Uhuru kula saxiixday heshiisyo gaaraya ilaa 2 bilyan oo euro oo ay kamid ahayd 200 oo milyan oo euro oo Faransiisku ku ilaalinayo xeebta iyo badda Kenya xilli muran uu ka taagan yahay xuduudda badda Soomaaliya iyo Kenya shirkadiisa Totalna ay kamid tahay shirkadaha shidaalka sida sharci darada uga baaraya aaga badda Soomaaliya si lama filaana shirkii caalamiga ah ee dhaqaalaha buluuga ah ee lagu qabtay Nairobi ayaa dawladda Faransiiska kula saxiixatay Kenya iskaashi amni oo ay qayb ka ahaayeen dalalka Comoros Djibouti Madagascar iyo sidoo kale Seychelles balse shaki galiya Soomaaliya walow ay ka jiraan dhinaca badweynta Hindiya fursado iskaashi oo aan la inkiri karin haddana Faransiisku wuxuu rabaa inuu muujiyo xuduudiisa badeed taas oo leh cabsideeda iskaashiga amni ay la yeesheen dalalka gobolka waa dariiq uu ku xugminayo marinada badda ee u dhaxeeya gacanka Bershiya badda dhexe ee Mediterranean Sea ilaa badweynta Hindiya
xiriirka ganacsi ee Faransiiska iyo Kenya waa mid sii kordhaya sanad walba. Faransa waa wadanka 14aad oo Kenya ee badeecadaha ka soo iibsato oo u badan makiinadaha culus, daawo iyo qalab qurxinta iyo beeraha iyo wix la mid ah. Maalgashiga Faransiiska waxa uu ahaa 2 sano ka hor 2017 ku dhawaad 500 milyan oo euro, halka mugga ganacsiga ee isla sanadkan uu yahay 171 milyan oo euro. Si kastaba ahaatee, arrimaha dhaqdhaqaaqa Faransiiska ee Kenya la xiriira ayaa la sheegaya saameynta ugu xooggan inuu ku yeelan doono Soomaaliya, maadaama Faransa ay la xifaaltamayso dalka Turkiga isla markaasna haatan isku hayaan dhalal dhowr ah oo ay ka mid tahay arrimaha shidaal baarista uu Turkigu ka wado badda ay ku muransan yihiin dalka Greek oo Faransiisku inta badan uu helinayo. Sidoo kale Faransiiska ayaa ka xun faragelinta Turkiga uu ka wado dagaalka u dhaxeeya Azerbaijan iyo Armenia. ugu dambeyntiina daawadayaal waxaan u eegi doonaa wararka la xiriira doorashada dalka Mareykanka. Joe Biden ayaana si lama filaan ah u qabtay gobol ay sanado badan jamhuurigu ku tashan jireen. rajada Trump ee doorashada madaxweynaha Mareykanka ayaa daqiiqada ka dambeysa sii xumaanaysa, waxaana soo xirmaya albaab kasta oo fursad ah iyadoo u badan tahay in saacadaha soo socda doorashada lagu kala baxo. Madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Mareykanka Joe Biden oo Trump la loolamaya ayaa si lama filaan ah u qabtay hogaanka codadka gobolka Georgia, taas oo aan marnaba laga filaynin ka hor doorashada. Biden ayaa wax yar uun ka badan 1,000 cod ka horeeya Trump iyadoo tirinta codadka gobolkaasi ay gabagaba tahay. Gobolka Georgia ayaana u codeen musharax madaxweyne oo dimuqraadi ah tan iyo sanadkii 1992 markaas oo uu ku guuleystay Bill Clinton, waxaana wixii markaasi ka dambeeyay uu ahaa gobol jamhuurigu ku xoogan yihiin oo la isku haleyn karo. Haddii Biden uu ku adkaado gobolka, ma jirto hab uu Trump doorashada ugu guuleysan karo, xitaa haddii uu ku guuleysto dhammaan gobolada kale ee harsan oo aan weli la go'aamin cidda hanatay. guusha Georgia ayaa Biden sii doonta 269 cod, waxaana haddii uu Trump ku guuleysto dhammaan gobolada kale uu heli karaa 269, taasi oo go'aanka doorashada u gacan gelinaysa aqalka wakiilada oo ay maamulaan dimuqraadiga. guusha doorashada ayaana u baahan 270 oo kaliya. si kastaba, Trump ayaa qabtay shir jaraa'id uu kaga yaabiyay dadweynaha Mareykanka. Trump ayaana waxa uu shirkan jaraa'id kaga yaabsaday dadka Mareykanka isagoona bilaabay weerar xun oo ku faafinayo eedo aan wax cadeema ah loo helin oo ah in laga xaday guusha doorashada Mareykanka. Waxay isku dayayaan inay xadaan doorashada, ayuu Trump ku yiri shirkii jaraa'id oo uu ku qabtay aqalka cad 2 maalmood kadib markii ay soo dhamaatay codeynta doorashada. isaga oo aan wax cadeema ah soo bandhigin isla markaasna wariyaasha u ogolaan inay su'aalo weydiiyaan, ayaa Trump waxa uu qaaday tallaabo aan caadi ahayn oo ay kaga soo yeereen erayo aan taariikhda hore looga maqal madaxweyne Mareykanka. Waxa uu yiri in dimuqraadigu ay isticmaalayaan codad sharci darro ah si ay doorashada u xadaan. Haddii aad tiriso codadka sharciga si fudud ayaa ku guuleysanaya, ayuu yiri. Waxay isku dayayaan in ay ku shubtaan doorashada, mana ogolaan karno inay taasi dhacdo, ayuu hadalkiisa sii raaciyay Trump. cabashada Trump ayaa la xiriirta codadka doorashada ee lagu soo dirayay boostada, kuwaas oo dadka qaar ay door bideen inay codadkooda ka dhiibtaan goobaha doorashada. Dad badan ayaana doortay inay codadkooda soo diraan sanadkan iyagoo ka walacsan cudurka COVID-19 oo dalka Mareykanka ku dilay in ka badan 230,000 oo qof. Si kastaba, maadaama Trump uu isku dayay inuu hoos u dhigo halista COVID-19 isla markaasna taageerayaashiisa u sheegay inaysan codadkooda ku soo dirin boostada oo ay toos u dhiibtaan codadkooda boostada, ayaa haddana badankooda dadka boostada ku dhibanayo waxa ay yihiin kuwa dimuqraadiga. Sidoo kale, codadka la soo diray ayaa tirinta lagu bilaabay kadib kuwii tooska loo dhiibtay, waxaana dhacday kadib in gobollo badan oo uu ku horeeyay Trump, maadaama codadka maalinka doorashada ay ku badnaayeen taageerayaashiisa, kadib laga daba yimid ama laga hormaray markii la tiriyay kuwa la soo diray. qayladhaanta Trump ayaana timid iyada oo gobollo badan oo weli aan la go'aamin cidda guuleysatay ay u muuqdaan kuwa u janjeera dhanka Joe Biden. Biden oo 77 jir ah ayaana 1 ama 2 gobol u baahan si uu ugu guuleysto doorashada ugana saaro aqalka cad Trump oo 74 jir ah. guud ahaan daawadayaal wanaga inta warkii aad kala socoteen janalka Isha Wararka TV, fadlan haddii aan ugu cusubtaan ugu soo biiro subscribe sar janalkan si aad uga mid noqoto saaxiibada sida joogtada weelo wararka 24 janalka ugu baahino. aragtidiina halka hoos noogu reeba, muuqaalka share gareey, laakiin waa inoo muhiim daawadayaal, waana ku maasantiin daawashada muuqaalkan oo aad kala socoteen Isha Wararka TV.